بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta leh ee ku xiran channelkeena caafimaad channel. insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo basbaaska iyo caafimaadka ku duugan. basbaasku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka dunida aadka looga yaqaano. inkastoo basbaasku uu ku caanbaxay kuleelka, laakiin waxaa ku jira fitamiino iyo macdano jirka wax u tara. waxaana ugu horeeyo fitamiin C, fitamiin B6, fitamiin K, fitamiin A iyo potassium. waxaa intaas sii dheer in basbaasku uu xambaarsan yahay walxo daawo ahaan loogu isticmaalo cudurro dhowr ah. waxyaalahaas qaarkood basbaaska kaliya laga helo, waxaana ugu caansan maadada loo yaqaano capsaicin oo hadda laga sameeyo daawooyin iyadoo la adeegsaday cilmi baaris tiro badan. haddaba waa maxay faa'iidada basbaaska? waxaa basbaaska loo adeegsadaa in lagu daaweeyo xanuunadan aan soo wado. 1. xanuun baabi'iye. maadada capsaicin ee laga helo basbaaska ayaa waxay xambaarsan tahay awood ay ku yareyn karto xanuunada, khaasatan xanuunada neerfaha ka dhasha. waana sababta keentay in maadadan laga sameeyo kareemyo loo adeegsado xanuun baabi'iye ahaan. kareemadaasoo loo yaqaano capsaicin ointment. waxaa kaleetoo ka mid ah faa'iidada basbaaska miisaan ridis. cilmi baarisyo la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in basbaasku uu gubo ama uu yareeyo xeerta ama baruurta jirka ku jirto. sidoo kale wuxuu kordhiyaa isticmaalka tamarta jirka ku kaydsan. markii tamarta jirka la isticmaalo, waxaa fududaanaysa qofka in aan xeer loo keedinin ama dufan loo keedinin uu sidaas miisaankiisa ku dhimo. laakiin waxaa lagama maarmaan ah in lala sameeyo exercise. basbaaska keligiis miisaanka ma dhimo, waa in lala sameeyaa exercise fudud. faa'iidada kale ee basbaaska waxaa ka mid ah basbaaska wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha. basbaaska waxaa ku jira maado kale ee loo yaqaano sayin, waxayna maadadaas hoos u dhigtaa kolestaroolka. waxay ka hortagtaa xinjiroobista dhiigga. waxay kaloo hoos u dhigtaa cudurrada wadna qabadka, faaliga iyo xinjiroobista xididada sanbabaha. waxaa kaleetoo ka mid ah faa'iidada basbaaska, caburka ayuu u wanaagsan yahay. basbaasku wuxuu hawo-mareennada ka nadiifiyaa diifka iyo xaaqada. sidaas daraaddeed, dadka ay xaaqada kasoo go'i la'dahay markay qufacayaan, waxaa wanaagsan in ay cuntada ku darsadaan basbaaska. sidoo kale waxaa ka mid ah faa'iidada basbaaska, wuxuu sare u qaadaa difaaca jirka. basbaaska gaduudan wuxuu u roon yahay xanuunada bakteeriyada keenta oo ku dhaca sanbabada sida oof-wareenka iyo bronkiitada. wuxuu kaloo ka hortagaa kansarka borostatada ee ku dhaca ragga. cilmi baarisyo dhowaan la sameeyey waxaa lagu sheegay in basbaasku uu yareeyo halista cudurrada kansarka ee ku dhaca qanjirka ragga. haddaba haddaan soo aragnay faa'iidada basbaaska, ma leeyahay basbaaska dhibaato ama khasaaro? basbaasku wuxuu keenaa kuleel iyo in haddii uu qofka ka gaaro indhaha ay aad u huraan. sidaa darteed waa in uu qofka ka ilaaliyaa indhaha. basbaasku wuxuu siyaadiyaa laabjeexa iyo hurka caloosha markuu qofka ku cusub yahay. laakiin waxaa la arkay markii la joogteeyo basbaaska inuu nabarada gaas calooleedka daawo u yahay. waxaa kaleetoo jirta fikrad badan oo dad badan qabaan ama ay aaminsan yihiin, laakiin aan la xiriirin fikrad ku salaysan caafimaadka, taasoo ah basbaasku in uu xiriir la leeyahay baabasiirka.
mana jirto wax cilmi baaris ah oo la xaqiiqsan yahay oo arrintaas caddaysay. saas liajligeed basbaasku iyo baabasiirka wax xiriir ah kama dhexeeyo. haddaba basbaaska maadaama uu leeyahay dhowr kalar, keebaa ugu faa'iido badan? basbaas gaduudka ayaa ugu faa'iido badan, wuuna ka caafimaad fiican yahay kan cagaarka ama jaalaha ah. haddiiba ay dhacdo in aad basbaaska u isticmaasho daawo ahaan, ku dadaal basbaas gaduudka. waan filayaa in aad ka faa'iideysan doontaan faa'iidooyinka basbaaska, iskana ilaalin doontaan dhibaatooyinka aan ka sheegay haddii ay ku dhibayaan. dhanka kale, dadka qaba laabjeexa waxa uu dhibayaa basbaaska haddii uu ku cusub yahay, laakiin haddii ay in muddo ah wadaan way la qabsan doonaan, wuuna u fiican yahay dadka qaba laabjeexa, laakiin waa in ay laasimaan ama ay daa'imaan. waad mahadsantihiin walaalaha quruxda badan ee nagu xiran, sida mar walba aad inoo daawataan ina dhiirigelisaan. insha Allah soo dhawaada. wixii talo iyo tusaale ahna insha Allah qaybta commentiga iyo su'aalahaad qabtaan waan idinkaga soo jawaabi doonaa, waana idin qiimeeyaa walaalahayga qaaliga ah. insha Allah inoo share gareeya. haddii aad tahay qof cusub, soo dhawow, subscribe-ka noo saar. haddaad hore noola joogtayna waa mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.